waxaa la mida ciidaha kan new year baa la mida sanadka cusub sanadkan cusub ee January la sheegayo ugu horeyn Julius waqtigiisii baa loo dabaaldegay waqtiga ugu horeeya waa 45 BC ee loo dabaaldego waqtiyadii dhexe looma dabaaldegi jirin waqti dambe dib loo soo celiyay kalendarkani waa kalendar Roman Romanisku waa wathaniyiintii hore Juliusna waa boqorkoodii waa ninka bishan July la yiraahdo isku magacaabay boqorkii isaga ka dambeeyay Augustus bisha August la yiraahdo isku magacaabay bilaha kala qayb ka midina waa ilaahiye magacyadood March waa ilaah dagaalka ilaahul harb bay March yiraahdaan waa ilaahiye magacyadood qaybaha dambana waa tiro September October November December Sep waa bishii toddobaad Oct waa bishii sideedaad Nov waa bishii sagaalaad Des inagan decimaliya waxa sheegnaa waa bishii tobnaad oo haddama xal 12 ka dhigay maxay soo weydaariyay boqoradan bay soo weydaariyay Julius baa 760 maalmood xagga hore kaga daray oo January February ku soo darsaday kadib Gregory Boobkii la oran jiray أيام جوليوس وقت يصير بش سنة كواحد الحساب يجري صدق بقول شنية لحدا إيوه 0.24 وحلو قاعدين حساب تاسعي قلدمتي قلت كسيوح وكينية سنة كيبر نور منت كوبية طوال منتين يصاب حان ويكويني كمرك الحسابية سولار سيستم كينو قلدانية سأد ردد أي وحي قاعدين هذا وحي حسابي أنا هي صدق بقول شنية لحدا iyo 0.25 kun shan boqol iyo 28 markii la marayay ayuun baaba 10 maalmood hore loo soo guuray bishu iyadoo afarun baa la yiri may saaka waa 14 October khamiis oo bishu afar tahay jimciga ku xigay ayuun la yiri waa khamiistani waxa weeyaan waa khamiistii 14aad bay ahayd maalinta ku xigtaana 15 bay noqonaysaa ingiriiska diiday لا بقول سنادود إنكو دودو ديدنا إنجليزكو 1752 مالها سي أي سنة سكاق